wuxuu rasuulku yidhi calayhi subax markaa maalmaha kamid qiso oga qisooda wuxuu yidhi ninbu wuxuu ku yidhi wuxuu u sheekeeyey ninbu soo martiyey rasuulka nin soo martiyey nin reer baadiyo ah soo martiyey markuu soo martiyey si fiican buu rasuulku u sooray rasuulku waa si fiican loo sooray ninka reer baadiyo iska ah wixii markaa uu hayay iyadu takriim aad u fiican buu u soo dhaweeyey markaas rasuulku wuxuu ku yidhi niyahow salni wax weydiiso ku rasuulka hadii wax weydiiso ma hada ninka Rabi'at ibn Ka'b ad garanaysaan ma uu ka duwan yahay ninka waa nin Arabi Rabi'at ibn Ka'b nin himal caali oo khatar ayuha waa rasuulka ka yaabiyay waa meeshu xidigaha u qabsaday marka wuxuu ku yiri wax weydiiso nabi maxamed way wax dhahay wax weydiiso ninka waxa u furaa inuu yiraahdo ilaahay ii weydiino ilaahay ii dambi dhaaf inuu ilaahay janno ii geeyo wuxuu heli kari inuu yiraahdo qaa'idku umada taaye faqri baan ku jiraayo xoogaa bal ii xoolago wuxuu heli kari inuu yiraahdo jagaha la ii dhiibo adu intaas option ba u furaa oo adduunka aakhir wuxuu inuu weydiisto reebaadiyo hamigooda ma weyn dadka hunguriga weyn dadka reer magaalka ay waxba deeqeen hadii wax kasta la siiyo waxba deeqeen waa dadka magaalada laakiin ninka reebaadiyaha laba sac oo maal iyo laba halaad oo maal haduu helo inka soo reebaadiyaha hadda isbedeleen oo qudhigoodu jirada magaalada soo gaar ninka wuxuu weydiiyay rasuulka ma taqaana wuxuu ku yiri awr aan ku guuro iyo ri carruurta igu cadaystaan maan rabaa in la siiyo hal riti aan ku guuro iyo ri hada laba ri muusa ri soo ma garanaysan ri maxal da ma garanaysan ri waxa la ya ari cadna waxa saa ninkan uu weydiiyay hadda ka hor baa Birmingham Ingiriiska anoo jooga darsi akhrinay masaajid Masr Ahmed yaa kan sakadii waxbaan ka hadlayay markaas waxaan maartay bintul Makhab yaa ka waajibays bintul Makhab xali hada waa mid waxa weeyaan hooyadeed daadi ku xigtay ay riman tahay marka mid baan waxaan ku iri marka waa nirig weeyaan ma nirig weey ku meesha fadhiinin bidaarta halka joogto yaa waxaan ku iri yaa garanayaan ku iri nirig wax la dhaho hada waa niman adu 25 jir 24 jir 19 jir 30 jir intaas isku dhex jiraan rag dhalinyaro waxaan akhriyay darsi mid halka bidaarta u joogto oo marra mulukaysan oo madaxda wada xiriir ku qaran bidaarta marra koofiyada xiranay yaa farta taag wuxuu yiri aniga wadaan idin sheega aabaha dhalay oo garanaysan caan u yahay odayga dhalay caan u yahay baa yiri sheekh anaga garanay nirig waxa la yiraahdaa ariga madaxa madow maqashiisa weeyaan ariga madaxa madow maqasha u dhalaa nirig la dhahay balka waran arintaas ya reer buu ninka leeyahay carruur buu dhalay maalinka masaajidka soo wiilkiisa wato la yimaada هلا أرجع ماذا حمد ومقش الآن الرجال الذهب إنه جيس إنتين لك بمن إنك إنه في صومالي برم يا وحلا يابلو مركا نيكي عربي وحوجي أور أنكو جورو يري أن وحكو عدا يستوهر في إمالان فانكا يانكو يدي سنة يابل رسولك أرنت أدولا وكعلي هذا نروح يويديسون النيو انتي بهذا نويدي ريدي وحكوسو علي أورك مرصد حاد وضن رسولك كعلي ورنيه وحي ويديسه يعني نكن هميه لديسو ياركا انت ما دنا كسعانو في اوركا ما كويديسه كسر رسولك وحكي عليه الصلاه والسلام او عجزت ان تكون مثل عجوز بني اسرائيل ورمحاذاتها كغابسي ود كيني كري ويدي اسلانتي وايل كده ريب بني اسرائيل نبي الله موسى ماشي الى قدحت ما تكعجستي ما كيني كري ويدي او عجزت ان تكون مثل عجوز بني اسرائيل هل كاس صحابة الرسول الله كل دقيقة ودان رسول الله وما عجوزة بني إسرائيل ريبنا عجوزة ذو محايا هيد بنا مركب هالك واقع الصادق وعقول لي ريبنا إسرائيل عجوزة ذو محايا هيد بنا وقت النبي الله موسى ريبنا ذو كل عشرين وكيتيها كل عاد ويسافرتي أي كرب من وضدي ومددر أي وريجة هيين مركز النبي الله موسى عقلا ذودي بسوية ري علماء ذودي وربنا أنه يسوى وضدي وانكرب النايا محا حلا ده يقول waxay dhahan wadada waxaan oga dhumnay ahdi iyo ballan aan horaan galay oo wiyalkan ay galeen baan burinay cuqubadiisi baan ugu dhacday saadartay ahdigii hadaan maarta oofino waan ka baxaynaa intii oo ahdiga muxuu ahaa waxay dhahan nabi ilaahi yuusuf markii la xabaalay oo dhintay oo masar lagu xabaalay ya wiyalkii iyo dadka reer bani israa'iil meesha joogay wuxuu kula dardaarmay ahdi kula galay hadii aad guurtaan oo baytul maqdis iyo dhulkeeni asalkaad u noqotaan qabrigeygana intaad qodaan qaadi meydkeyga qaadi hayga tagin meesha anigana baytul maqdis iyo celiyo halka lagu xabaalo sidaas ahdi iyo ballan yaa looga qaaday
idan waa ka annaga waanu soo guuray ballanta waan ka baxno maana soo qaadan bideen meydkiisa tiibaa cuqubadii nagu dhacdo jidkii baa ilaahay naga qariyay bideen markaas wuxuu yidhi yaa garanhayo yidhi meesha markaas waxaa lihi maanta wax nool oo reer banu israa'iil oo garan kara ma jirto ilaa hal cajuuso islaam waayeel aan ognahay wax taqaano markaasuu yidhi bal islaantii igu yeedha islaantii baa fariin loo faray wuxuu ku yidhi waxaa lagu yidhi marka waxaad ku tirahdaan buuri kaalayoo na tusi nabiyullaahi yuusuf qabrigiisa ninkii loo diray markuu u tegey waxay ku tiri waxaad ku tirahdaa muuse ina tusin maayo ilaa aad ii ballanqaadday inaan jannada adkhul macaka aljanna ilaa aan jannada kula galo aad ii ballanqaadday marna bay kusoo tusin maayo rufiisa meesha ku dhegtay gabadhaas islaanta waa yeelka ilaa aad jannada inaan kula galo aad ii ballanqaadday kunama tusaayay tiri hadda jannada gelitaankeeda muuse masay gacanta ugu jirtaa waa maya wey ninkii baa ku soo celiyey wuxuu yidhi saasay wadaadi tiri nabiyullaahi muuse arrintii way ku adkaatay hadda jannaan kuu ballanqaadi karaa ma dhihi karo ku kaluu ku celiyey wuxuu bal orado inay sida yar dhaanta laga yaabaaye wartiihii iyo dhib baan ku jiraaye bal ilaahay baan kula baryeenaaye bal hawlo kale waxaan samaynaa bal kaala hor jidkana ma jirtii tiri haddaan jaanis aan haystaaye ilaad ii ballanqaaday an adkhula macaka aljanna marnaba ma yeelhay tiri hawshu waa adkaatay jiq bay noqotay fa awxa allaahu subxaanahu wa tacaala waktigii baa ilahay waxyi ku soo degay nabiyullahi muuse markaasaa lihi awfi cahdiha cahdigeeda u oofi baa lihi ballanteedii u oofiyo u sheeg baa u ballanqaad inay jannada kula gelayso sidii baa nabiyullaahi muuse u diray haddana wuxuu yidhi ballantaadii waa lagu oofiyey rabbulcaalamiin baa soo amray yaa ii waxyooday idan jannadaad ila gelaysaa kaalana tus sidii bay ku soo kacday islaam waa yeelow way soo kaxaysay waxay keentay meel buxayro oo biyo fadhiya halkan biyahan ha laga dhammeeyey tir soomaaliga maxaa lagu yahay biyo meel fadhiyo ceel markii laga maxaa la yihahdaa hay maxaa u taqaanaado af soomaaligaas ya maya markii la rabo in biyaha meesha laga dhammeeyo dhurid baa la dhihi dhurid baad u taqaanaa adigana sheekh maxaa u taqaanaa ka hari intuba lahjaad wey waan ina waad hadhow marka hal lahja keliya waxa ku sheegi marka ama ka rardhe ama ka haridhe ama dhurdhe ama ka harqidhe almihii ka dhammee wey meeshii biyihii laga dhammeeyo wey ciidankii baa meeshii lagu dalbado biyihii baa meeshii laga dhameeyey eber laga dhigay bartii markii la dhameeyey bay tiri halkan jeexa saad u jeexeenba waxaa soo baxay meydka nabiyullaahi yuusuf baa soo baxay markii baa lafihii wixii dhan laga soo qaaday meesha wuxuu xadiidku leeyahay bimujaradi saa loo soo bixiyey ee waddadii waxay noqotay kaannamaa markaa maalin oo kale qoraxdii say u caddahay oo kale bay waddadiina uga caddaatay iyo waddadu caddaatay dheh saaday u soo saareenba meydkiisa baa waddadii mugdiga kaga jiray tiiha ay ku jireen baa waxay u noqotaa marka ka shamsi oo kale noqoteen sidiiba marka ayay ku tageen yani waxaan oga jeedaa rasuulka qisada muxuu u keenay saxaabadiisa ku tarbiyeynayo ninkii wuxuu ku yidhi caraabiga aw cajaza an takuuna mila cajuuzi bani israa'iil war hata reer banu israa'iil qofkoodii waa yeelkeeda dumarkahayd hataa himigeedii maad keeni weyd markaad leedahay ri aan maaliya awraan ku guura kaleeda ila ag taaganta wax ka weyn maad weydiis himigaadii away buu leehay yani himadii buu dhisayaa aw himadaadii buu leehay awr iyo ri aad ag taagantahay maantao dhan aan kugu soo celinaya hawshaa looma baahna wey hime caaliya lagaa rabaa marka saxaabadii sidaa ugu qiseeyey halkaana waxaan ka qaadanaynaa maaragtay qiimaha ay leedahay hime alcaaliya wixii ku saabsanaa insha allahu tacaala haddiina jalse kale aan jaanis u hello qisadaas haddana mid labaad aan kusii daro oo muxaadaro kale oo qisaskaa saxiix qisas nabawi waan insha allahu tacaala haddaan jaanis kala hello waan sii wadaynaa hada wasala allahu cala nabiyina muxamedin وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير